بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم caruure. waa habartiin jawhar maydhane. maanta waxaan idiin sheegayaa wax jannada lagu galo oo aad u fudud. nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi qofkii akhriyaa aayatul kursi marka uu tukado salaad kasta jannada ayuu galaa. haddaba marka aad tukataan 5 salaadood oo ah subax, duhur, casar, maqrib iyo cishaa'i waxa aad akhridaan aayatul kursi. aayatul kursi aad bay u fiican tahay oo muhiim u tahay ee barta. waxa kaloo aayatul kursi la akhriyaa marka aad seexanayso ka hor. markaad akhrido ilaahay qofka akhriyaa aayatul kursi malag ayaa loo soo diraa oo habeenkii ilaaliya.